kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka rajo qaran TV qodobada aad ku daawan doontaan warka rajo qaran TV-na waxaa ka mid noqonaya ilmo yar oo laga xaday isbitaalka Sos oo dib loo helay gudoomiyaha cusub ee bangiga dhexe oo xilka si rasmi ah la wareegay digniino xoogan oo loo soo jeediyay ganacsatada suuqa Xamarweyne qodobo ka soo baxay shirka golaha wasiirada maamulka Hirshabelle tafatiraha BBC-da qaybta Afrika oo sheegtay inay ka caabanayso wicitaanada al-shabaab iyo fariimaha ay u soo dirayaan madaxweyne farmaajo oo u jawaabay xubnaha dowladda federaalka ku daaweeyay wadamada caalamka muwaadiniinta masaarida ee ku nool gudaha Soomaaliya oo aan ka qayb galin codbixinta isbedelka loogu sameeyo dastuurka dalkaasi imaaraadka oo ogolaaday garoonka berbera ay adeegsan karaan diyaaradaha rayidka gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo eedan kulul u jeediyay xildhibaanada baarlamaanka Hirshabelle Itoobiya oo shaacisay inaysan jirin sabab ay badlaan u noqon karto ku dhawaad 500 oo qof oo ku dhaawacmay qaraxyadii Sri Lanka iyo dabley hubeysan oo lagu dilay weerar fashilmay oo ka dhacay Sacuudiga intaas waa qodobada ugu door corona aad ku daawan doontaan warka rajo qaran TV aatana u diyaar garooba inaad daawataan isagii oo fidsan taariikhdu waxay tilmaamaysaa 22 bisha Afraad sanada 2019 aynu ku bilownay wararkana soo gaaray ayaa sheegay in ciidanka booliska Soomaaliya ay ku guuleysteen inay soo qabtaan haweeney la sheegay inay xaday cunug yar mas'uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Helay ayaa sheegay in ciidanka ammaanka ay xireen dhowr qof oo lagu tumayay inay ka dambeeyeen falkan isla markaana lageeyay xarunta ciidanka booliska ee dambi baarista cunuga yar ayaa la sheegay inuu caafimaad qabo isla markaana lagu guuleystay lagu wareejiyo hooyadii dhashay hooyo Naima Maxamed oo hooyada laga xaday ilmaha yar ee lagu dhaxaday isbitaalka Sos ayaa xaalad aan wanaagsan ku jirtay kadib markii ay si weyn kaga naxday ilmihii ugu horeeyay ee ay dhasho oo laga xaday geesta kalena munaasabad kooban oo lagu qabtay xarunta bangiga dhexe ee Soomaaliya ayuu maanta xilka kula wareegay gudoomiyaha cusub ee bangiga dhexe iyadoo ay gobjoog ka ayaan wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle iyo hantidhowrka guud ee qaranka gudoomiyaha hore ee bangiga dhexe ee Soomaaliya Bashiir Ciise oo ka hadlay waxyaabihii u soo qabsoomay bangiga dhexe sanadii la soo dhaafay ayaa sheegay in haatan uu marayo xilligii ugu habboonaa maadaama dhaqaalaha dalka uu marayo dib u kabasho sidoo kale waxa uu bogaadiyay gudoomiyaha cusub xilka culus ee loo igmaday gudoomiyaha cusub ee bangiga dhexe ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi ayaa uga mahadceliyay shaqadii uu soo qabtay gudoomiyaha Bashiir waxa uuna sheegay inuu ka shaqeynayay sidii dalkan loo gaarsiin lahaa isku filnaansho dhaqaale dhinaca kale gudoomiyaha cusub ee bangiga ayaa kulan isbarasho la qaatay qaar ka mid ah shaqaalaha bangiga sidoo kalena lagu sagootinayo gudoomiyihii hore ee bangiga dhexe waxaana guud ahaan lagu bogaadiyay waxqabadka bangiga dhexe uu hayo ummadda Soomaaliyeed Marwo Maryan Cabdullaahi gudoomiye ku-xigeenka bangiga dhexe ayaa sheegtay in gacmo furan ay ku soo dhaweynayaan gudoomiyaha shaqaalahana ay yihiin dhalinyaro xirfad u leh shaqada bangiga gudoomiyaha cusub ee bangiga dhexe ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi ayaa ballan qaaday in shaqo hufnaan leh uu la imaan doono wuxuuna shaqaalaha ku dhiirigeliyay in qof kasta uu si cadaalad ah u shaqeeyo geesta kalena maamulka degmada Xamarweyne ayaa suuqa degmadaasi waxa ay ka bilaabeen howlgal lagu burburinayo dhismayaasha sida sharci darrada looga dhistay gudaha suuqa howlgalka burburinta ayaa waxaa si gaar ah looga sameeyay wadada saldhigga ilaa iyo bacadlaha oo ganacsiyo fara badan ay ku yaalaan isla markaana ciriiri fara badan uu ka jiray gudoomiyaha maamulka degmada Xamarweyne Cabduqaadir Maxamed Cabduqaadir ayaa sheegay in howlgalkaas ujeedkiisu uu ahaa in la isku furo wadooyinka degmada Xamarweyne oo goobo ganacsi oo sharci darro lagu dhistay taliyaha qaybta nabadgelyada wadooyinka General Maxamed Yusuf Umar Madale ayaa digniin u diray dadka wadada dhexdeeda ku ganacsada ee waratada loo yaqaano waxa uu sheegay in cid allaalay cidii fulin weysa amarka maamulka degmada Xamarweyne talaabo sharci laga qaadi doono isla markaana la keeni doono ciidamada qaybta nabadgelyada ilaalada Xamar si ay kaga qayb qaataan howlaha burburinta dhinaca kalena madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Dr. Maxamed Cabdi Waare ayaa waxa uu shir gudoomiyay shirka golaha wasiirada kaas oo looga hadlayay arrimaha xasaasiya shirka toddobaadlaha ee golaha wasiirada oo ka qabsoomay howlka shirarka madaxtooyada Hirshabelle magaalada Jowhar ayaa looga hadlay mashruuca midnimada labaad kaasi oo isugu jira xasilinta amniga dib u heshiisiinta iyo wacyigelinta wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladda hoose ee Hirshabelle mudane Maxamed Cali Caadle ayaa golaha sharaxaad ka siiyay mashruuca midnimada labaad qorshihiisa iyo muhiimadda uu leeyahay Hirshabelle barnaamijka midnimada labaad ayaa barnaamij lagu horumarinayo deegaanada Hirshabelle oo isugu jira horumarin gargaar dib u dejin xasilin dib u heshiisiin taasi oo maamulka Hirshabelle madaxdoodu ay u arkaan in wax badan ay ka bedeli karto xaaladda deegaanada Hirshabelle geesta kalena tafatiraha BBC-da qaybta Afrika Maria Harber ayaa sheegtay in marka ay al-shabaab wacaan ama fariimo ugu soo diraan emailkeeda ay qaraanto Maria oo maqaal dheer ka qortay wicitaanada al-shabaab marka ay weerarada geestaan ayaa sheegtay in xiliyada ay weerarada ka wadaan
hoteelada ay soo wacaan una sheegaan in ay dil badan wadaan kuwa hoteelka ku jiraan ay si fiican u leynayaan dadka degan hoteelka. Maria ayaa sheegtay in ay qarka u saaran tahay luminta saaxiibadeeda Soomaalida maadaama wicitaanada Soomaaliya oo dhan ay u haysato inay yihiin al-shabaab. Sababta ugu badan ee ay al-shabaab u wacayaan ayay ku sheegtay inay tahay in ay sheegtay mas'uuliyadda weerar xilligaas socday ama dhamaaday. Waxa ay sheegtay in maalinkii ay wacaan 17 ilaa 15 jeer marka ay ka qaban weysana ay inbox emailkeeda ay ku soo diraan fariimo waxayna ka muujisay walaac badan. Maria ayaa sheegtay in marka ay gaari wado ama ay waqti la qaadanayso qoyskeeda ama ay shaqo ku jirto ay ku adag tahay in telefoon ay ka jawaabto. sidaa daraadeedna marka ay fursad hesho ku aragto wicitaano badan oo Soomaaliya walwalka ugu weyn ay qabto ayaa waxaa kamid ah wicitaanadaas aysan ku celin karin xitaa haddii uu yahay qof muhiim u ah sababtoo ah waxay u haysataa in ay yihiin al-shabaab. Maria ayaa sheegtay in dhowr jeer ay la kulantay hanjabaado dila laakiin ma ahayn al-shabaab sida ay xaqiijisay. si kastaba ha ahaatee Maria ayaa waxay sheegtay in tani ay tahay markii ugu horeysay oo ay hanjabaado ka soo gaaraan urur diimeedyada ka dhisan qaaradda Afrika. geesta kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay siyaasiyiinta dawladda ku daaweynaya beesha caalamka ay yihiin kuwa doonaya inay dawladda dumiyaan. waxa uu sheegay in mucaaradnimada ay wanaagsan tahay laakiin in beesha caalamka la isku daaweeyo ay tahay dawlad dumin iyo faragelin shisheeye. madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay dad badan ay u maleynayaan haddii beesha caalamka aysan taageerin dawladda inaysan dawladda dhaqaaqi karin dad badanna ay isdhiibeen. inkastoo madaxweynaha aanu cidna si gaar ah ugu carabaabin haddana hadalkiisa waxaa laga dareemayaa inay jawaab u yihiin dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee ka socda magaalada Nairobi halkaas oo madaxda maamul goboleedyada Puntland, Jubaland iyo Galmudug kula shirsan yihiin beesha caalamka. sidoo kale siyaasiyiin xilal soo qabtay iyo qaar kamid ah axsaabta siyaasadeed ay iyana shirar ku leeyihiin magaalada Nairobi. dhinaca kalena safaaradda Masar ay ku leedahay caasimadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ayaan kamid ahayn safaaradaha Masaarida ee caalamka ee ay muwaadiniintooda ka dhiibanayaan codbixinta lagu doonayo isbedel lagu sameeyo dastuurka dalkaasi si loo kordhiyo awoodaha iyo xilhaynta madaxweyne Cabdifataax al-Siisi. afhayeenka guddiga doorashooyinka qaran ee dalka Masar Maxamuud al-Sharif ayaa waxa uu carabka ku adkeeyay in dhammaan safaaradaha iyo qunsuliyadaha Masar ee caalamka albaabada loo furay si ay ugu codeeyaan muwaadiniinta Masaarida ee ku nool dalalkaasi. afhayeenka waxa uu tilmaamay inaysan safaaradaha Masar ku leedahay dalalka Yemen, Soomaaliya, Syria iyo Liibiya qayb ka ahayn dhismayaasha diblomaasiyadeed ee Masar ee albaabada loogu furay inay muwaadiniinteeda Masaarida ka dhibtaan codbixintooda ku aadan isbedelka dastuurka sabab la xiriira xaaladaha amni ee dalalkaasi. boqolaal muwaadiniin Masaariya ayaa ku nool kana shaqaysta gudaha dalka kuwaasi oo badankooda ah diblomaasiyiin, macallimiin, dhaqaatiir, shaqaale u shaqeeya hay'adaha caalamiga ee fadhigoodu yahay Muqdisho iyo ganacsato ka dhex shaqeysa howlaha ganacsiga ee Masar iyo Soomaaliya. codbixinta isbedelka loogu sameynayo dastuurka dalka Masar oo bilaabmatay bisha Abriil 19keeda kuna eg 22 bisha oo maanta ahayd waxaa ka qayb galaya muwaadiniinta u dhashay dalkaasi ee ku nool gudaha iyo dibadda dalkaasi. si kastaba ha ahaatee codbixinta isbedelka dastuurka Masar haddii lagu guuleysto waxay taasi dhabaha u xaaraysaa in madaxweynaha dalkaasi Cabdifataax al-Siisi oo xiliyaantiisu ay ku eg tahay sanada 2020 uu sii han doono ilaa iyo sanada 2024 isla markaana uu mar saddexaad isku soo taagi karo doorashada madaxtinimo ee la filayay inay dhacdo sanada 2030. dowladda Imaaraadka Carabta ayaa dib u dhis ku wada garoonka diyaaradaha magaalada Berbera iyadoo qorsheynaysa inay ka dhigto saldhig military waxaana Imaaraadka garoonkaasi iyo dhulka ku xeeran ku wareejiya maamulka Somaliland. garoonka diyaaradaha Berbera ayaa horey loo sheegay inaysan adeegsan doonin diyaaradaha rayidka iyo kuwa ganacsiga waxaana garoonkaasi la tilmaamay in kaliya Imaaraadka adeegsan doonaan. wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Yaasiin Xaaji Maxamuud Faratoon oo kamid ah wafdi uu hogaaminayay madaxweynaha Somaliland oo Imaaraadka tagay ayaa sheegay in dowladda Imaaraadka ay aqbashay in garoonka Berbera adeegsan karaan diyaaradaha rayidka. waxa uu xusay wasiirka in mas'uuliyiinta Imaaraadka Carabta isla garteen in garoonka Berbera ay dib u dhiska ku wado dowladda Imaaraadka ay diyaaradaha rayidka iyo kuwa ganacsiga isticmaali doonaan. dowladda Imaaraadka Carabta ayaa qorsheynaysa in garoonka diyaaradaha magaalada Berbera ka dhigto saldhig weyn oo military waxa ayna Imaaraadka arrintaasi kala heshiisay Somaliland. dhinaca kalena gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ayaa eedayn kulul u jeediyay xildhibaanada baarlamaanka Hirshabelle gaar ahaan xildhibaanada ka soo jeeda gobolka Hiiraan isagoo ku eedeeyay in dhibaato ku hayaan maamulka ka jira gobolka Hiiraan. Yuusuf Dabageed oo ka hadlayay munaasabad lagu soo dhaweynayay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Hirshabelle Anab Axmed Ciise oo booqasho ku tagtay magaalada Beledweyne ayaa sheegay in xildhibaanada Hirshabelle ay mar walba cadaadis ku saaraan madaxweynaha Hirshabelle inuu bedelo mas'uuliyiinta deegaanada hoostaga gobolka Hiiraan
Hiiraan iyagoo aan wax sabab u hayn sidoo kale gudoomiye dabageed ayaa sheegay inaysan jirin wax faa'iido oo maamulka Hiiraan uu ku qabo isbedbedelka ka dhaca deegaanada maamulka hoostaga hayeeshee waxa uu hore ugu eedeeyay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Dabageed in isbedelka maamulka gobolka Hiiraan uu yahay mid uu ka dambeeyo madaxweynaha Hirshabelle iyo wasiirka arrimaha gudaha Hirshabelle geesta kalena dowladda Itoobiya ayaa markii ugu horeysay shaacisay in ciidamadeeda badda ee burburay 1990kii ay 27 sano kadib dib u soo celinayso dhawaana shaqadooda bilaabanayaan maalmihii la soo dhaafay ayaa waxaa taagnaa muran badan oo ku aadan halka ay ka howlgeli doonaan maadaama aysan lahayn wax bada sareeyo guud Birhanu Jula oo taliyaha ciidanka badda Itoobiya ayaa sheegay in dowladda Itoobiya ay ku howlan tahay sidii ay u dhisan lahayd ciidamada badda oo adag ciidamada badda ee Itoobiya dhisanayso waxay noqon doonaan ayuu yiri kuwa tababar casri leh isla markaana qalabkii ugu dambeeyay ee ciidamada badda adeegsada Itoobiya ayaa waxaa sidoo kale leedahay macad lagu tababaro xirfadlayaasha badda waxaana sanad kasta ka soo baxay 500 oo qof oo leh xirfado kala duwan waxaana la qorsheenayaa in tiradaas la gaarsiiyo ilaa 1 milyan oo qof geesta kalena in ka badan 207 qof ayaa maanta waxada ku dhintay qaraxyo lala eegtay kaniisado iyo hoteelo ku yaala dalka Sri Lanka qaraxyadan waxaa ku dhaawacmay ku dhawaad 500 oo qof saraakiil dhinaca amniga ayaa wakaaladaha wararka u sheegay in laba kamid ah qaraxyada ay fuliyeen dad soo miidaamiyay saraakiisha ayaa sheegay in mid kamid ah kaniisadaha la qarxiyay oo lagu magacaabo St Anton iyo saddexda hotel ee la qarxiyay ay ku yaalaan Colombo oo ah caasimada Sri Lanka kaniisadaha kale ayaa ku yaala magaalada Nekombo oo ka baxsan Colombo iyo magaalada Zion oo ku taala Batikola ma jirto cid ilaa haatan sheegatay mas'uuliyadda weeraradan si kastaba ahaatee mas'uuliyiinta dowladda Sri Lanka ayaa sheegay in haatan ay isku dayayaan sidii ay baaritaano xoogan ugu sameyn lahaayeen cidii ka dambeysay falkaasi sidii loo ogaan lahaa ugu dambeyntiina telefishinka Al Arabiya ee ay dowladda Sacuudiga leedahay ayaa sheegay in la fashiliyay weerar ay kooxaha hubeysan ku soo qaadeen saldhig boolis oo ku yaala duleedka caasimada dalkaasi ee Riyadh afar dablaya ayaa lagu dilay weerarkaasi oo ka dhacay saldhig boolis oo ku yaala degmada yar ee Zulfi oo 250 kilomitir dhanka waqooyi galbeed kaga toosan caasimada Riyadh muuqaal video oo la soo dhigay baraha bulshada ayaa laga arkayay gaari taagnaa bar control iyo dhiig dhulka ku daadsan iyadoo la maqlayay dhawaqa rasaas xoogan telefishinka Al Arabiya waxa uu sheegay in dableyda weerarka soo qaaday ay wateen qoryaha darandooriga u dhaca bambooyin batrool ahaa sanadkii hore tiro ka tirsan ciidanka ammaanka iyo muwaadiniin u dhashay Bangladesh ayaa lagu dilay weerar lagu soo qaaday bar control oo ku taala agagaarka degmada Burayda iyadoo weerar kale oo ka dhacay degmada Taif ee galbeedka dalkaasi lagu dilay hal askari guud ahaan markii aad ka daawanaysaan Rajo Qaran TV akhyaari wanaagga intaasi aad u heshaad buu waxa warar ku soo kordha geyga Soomaalida iyo daafaca caalamka subscribe saaro Rajo Qaran TV